waxay dileen wax ka badan 50 kun oo qof. waxay burburiyeen kala bar dhismayaashii magaalada, waxay jareen korontadii iyo isgaarsiintii, waxay kaloo qarxiyeen wadooyinkii muhiimka ahaa, goobihii cibaadada, mataaxiftii iyo dhismayaashii astaanta u ahaa magaalada. kama badbaadin dad, dhagax, xoolo iyo wax walba, laakiin dadkii ku noolaa magaalada waxay isku raaceen, diideen inay isdhiibaan. waxaa laga yaabaa inaad u malayso meesha aan ka hadlayno inay tahay Gaza, balse xaqiiqadu waa inaan ka hadlayno magaalada London ee caasimadii boqortooyada Ingiriiska. taariikhdu sida caadada u ah way isrogrogtaa, laakiin sida aad ogtihiin, markhaatina aad uga tihiin waxaa hadda adduunyada ka socda, iyo ogolaada inaan idinkaga sheekeeyo wixii dhacay qarniyo ka hor, qof idinka mid ahna uusan goobjoog u noqon. haddaba na soo raaca oo nala socda ilaa dhammaadka muuqaalka. magacaygu waa Bashiir Cadow. ku soo dhowaada warbixinta, balse intaan u gudagelin faahfaahinta, like saar muuqaalka, sidoo kale subscribe saaro janalka, gambaleelkana fur si aad u heshid warbixinadeena aan inta badan diiradda ku saari doono taariikhdii lasoo dhaafay iyo waqti xaadirkan. mahadsanidin. sawirka taariikhda bedelay. waa dhab in warbixinteena ay ku saabsan tahay magaalada London, laakiin iyo ogolaada inaan wax yar isdul taago magaalada Paris, gaar ahaan sawirkan uu Hitler iyo saraakiishiisa ay hortaagan yihiin taalada caanka ah ee Paris. halkan waa meeshii uu hogaamiyaha Jarmalka Naaziga kaga dhawaaqay in sawirka soo socda ay ku geli doonaan fagaaraha barxadda cas ee Midowgii Sofiyeeti ee Moscow. laakiin oraahdaas waxay ahayd khiyaano uu doonayay in uu ku marin habaabiyo Ingiriiska oo xulufo la ahaa Faransiiska iyo Sofiyeetka. markii uu hadalkaas ku dhawaaqay Hitler, Ingiriisku waxay aamineen in bartilmaameedka xigi doona Faransiiska ee Jarmalka uu noqon doono Midowgii Sofiyeeti. ficil ahaana labada dhinac waa Ingiriiska iyo Jarmalka waxaa jiray heshiis u dhaxeeyay oo dhigayay in Jarmalka uusan weerari doonin Ingiriiska, waxayna taas ku aaday markii uu Hitler ku guuleystay in uu Faransiiska ku qasbo inuu isdhiibo bishii Juun 23 1940. si fiican u xasuusta taariikhdan. 2 bilood kama soo wareegin heshiiskii ay kala saxiixdeen Hitler iyo Ingiriiska, ciidamadii cirka ee Jarmalku waxay duulaan lama filaan ah ku qaadeen magaalooyinkii Ingiriiska oo ay London ka mid tahay. 26 bishii Sebtembar ee isla sanadkaas, diyaaradaha dagaalka Ingiriisku waxay jebiyeen kuwii Jarmalka, taasoo ku kaliftay taliyihii ciidamada cirka ee Jarmalka, Marshal Hermann Göring, in Jarmalka uu wax ka bedelo qorshaha weerarka Ingiriiska. haddaba muxuu ahaa qorshahaas? qorshahaas wuxuu ahaa in mar haddii ay ku guuldareysteen dagaalkii hawada, in dagaalka ay u soo wareejiyaan dhinaca dhulka. waxayna ahayd fikrad jahannamo ah, laakiin waxay saraakiishii Jarmalku weydiisteen taliyihii ciidamada cirka sida qorshahaas loo fulin karo. balse waxay jawaab degdeg ah ka timid taliskii ugu sarreeyey ee Berlin, taasoo ahayd in si arxan darro ah loo duqeeyo magaalada London, laguna qasbo diyaaradaha dagaalka Ingiriiska inay dib ugu laabtaan magaalooyinka si ay u difaacaan shacabkooda. ficil ahaana duqeymihii ugu horreeyey Jarmalku waxay la beegsadeen waxyaabaha aasaaska u ah nolosha dadka London iyo saldhigyadii military. duqeymahaas arxandarrada ahaa waxay London ku socdeen 2 ilaa 3 bilood oo xiriir ah, balse natiijadii ay rabeen Jarmalku uguma soo bixin. sidaas darteed Jarmalku waxay ku fikireen qorshe kale aadna ugu khatar badnaa qorshihii hore. habeenkii ay London oyday, qofkii akhriyay taariikhda magaalada London wixii ugu xumaa ee magaaladan soo mara wuxuu ahaa in uu dab ka kacay magaalada gebigeedna ay gubatay sanadkii 1666. dabkaas ayaa ku faafay qaybo badan oo ka mid ah magaalada, waxaana ku dhintay dad aad u badan. balse taas waxay noqon doontaa iqarso oo waxaa 10 laab ka darnaan doona duqeymihii diyaaradaha dagaalka Jarmalka. markii bilooyin ay ka soo wareegteen duqeymaha diyaaradaha Jarmalka ku bilaabeen magaalada London, gaar ahaan dhammaadkii sanadkii 1940, xilligii qaboobaha bishii Diseembar ama bilaashada sanadka cusub, si gaar ah habeenkii ay ku beegnayd 29 bishii Diseembar, Jarmalku waxay Ingiriisku hadiyad ahaan u siin doonaan hadiyad aysan weligood ilaabi doonin. amarku wuxuu ka yimid magaalada Berlin. duuliyaashii diyaaradaha dagaalka Naaziguna waxay u diyaar garoobeen in ay fuliyaan duqeyntii magaalada London. Hitler iyo saraakiishiisa sabarkii ayaa ka dhammaaday, maxaa yeelay waxay u adkaysan waayeen sida magaalada London iyo shacabkeedu ay ugu adkaysteen duqeyntii muddada dheer ku socotay. sidaas darteed Hitler iyo saraakiishiisa waxay dejiyeen qorshihii ugu dambeeyey ee lagu soo gabagabeynayo is-adkeynta magaalada London. in ka badan 153 diyaaradood oo sida bambooyinka iyo gantaalada waxguba ayaa mar qura cadceedii ka qariyay samada London, waxayna ku tuureen magaalada wax ka badan 100,000 oo bambo. 120,000 oo tan oo ka mid ah waxay ahaayeen maadooyinka sameeya qaraxa.
22,000 oo tan oo ka mid ahna waxay ahaayeen bambooyinka waxguba. duqayntaas ba'an waxay London ku socotay saacado badan. duqayntu waxay bilaabatay saacaddu markay ahayd 12:15 galabnimo waxayna socotay ilaa laga gaaro 10 saac habeenimo. markii ay duqayntu istaagtay saacado badan magaaladu shib ayay ahayd. kadib waxaa xigay qayli, oohin iyo gargaar weydiisasho magaalada oo dhan isqabsatay. meel walba holac iyo qiic ayaa ka baxayay. markii uu waagu baryay, dadkii yaraa ee ka badbaaday duqaynta ayaa isku soo baxay wadooyinka si ay u qiimeeyaan khasaaraha ka dhashay duqaynta. inta badan wadooyinkii ugu muhiimsanaa magaalada iyo boondooyinkii ayaa burburay. ma jirin wax magaalada u haray oo isgaarsiin ah ama wadooyin ah. waxaa burburay shirkadihii isgaarsiinta, taleefanada, tareenada, goobihii caafimaadka, iskuuladii, kiniisadihii, wax walba waa ay burbureen. sida lagu sheegay tirakoobka, ilaa 31 meelood oo ka mid ahaa dhismayaashii taariikhiga ahaa ee magaaladu caanka ku ahayd ayaa burburay. ilaa 1,500 oo goobood oo magaalada ka mid ahna waxaa ka baxayay holac. ciidamada debdemiskuna waxay awoodi waayeen in ay kameeyaan dabkaas. dhinaca kale, tirada dhimashada iyo dhaawaca soo gaaray dadkii ku noolaa London waxaan idinkugu sheegi doonaa qaybta dambe. kibirkii iyo isla weynidii London. bilowgii sanadkii 1941 waxaa weli socday duqayntii Jarmalku ku hayay magaalada London. Londonna way diidanayd in ay isdhiibto. ka hor dagaalka, magaalada waxaa ku noolaa dad gaaraya ilaa 9 milyan oo qof, kuwaasoo matalayay 5 meelood oo ka mid ah dadkii ku noolaa Ingiriiska oo dhan. waxayna ku noolaayeen dhul cabirkiisu dhan yahay 750 mayl oo laba jibaaran, ama in ku dhow 2,000 oo kiiloomitir oo laba jibaaran. 9 milyan ee ku noolaa London waxay ka warhayeen nuuca uu yahay weerarka cirka ah ee ku soo wajahnaa, kaasoo Jarmalku ugu magac daray Blitzkrieg, ama haddii aan si kale u fasirno, la micno ah dagaalka kediska. haddana waxay ahaayeen kuwo si nafsi ah ugu sii diyaargaroobay kuna talagalay dagaalka noocan ah. waxay horay warbaahinta uga maqleen ficilada naxariis darrada ahaa ee ciidamadii Jarmalku kula dhaqmeen dalalkii ka horreeyey sida Poland, Faransiiska, Holland, Belgium iyo dalalkii kale. waxay maqleen sida ay u soo burburiyeen dhammaan magaalooyinkii waddamadan, islamarkaasna aysan wax raad ah uga soo tegin. balse waxay indhahooda ku arkeen markii ay duqayntu ku bilaabatay London, walwal iyo walaac ayay ku abuurtay. dhinaca kale, xukuumaddii uu hogaaminayay Winston Churchill ayaa ahayd mid sii ogeyd burburka iyo khasaaraha ka dhalan kara duulaankii Jarmalka ee London. waxay ogeyd in uu noqon doono mid aad u weyn, waana midda keentay in xukuumaddii Winston Churchill ay ku amarto dhammaan shacabkii Ingiriiska, gaar ahaan kuwii London ku noolaa, in qof walba oo awoodo in uu hubka qaado uu dagaalka dhinac ka galo, magaaladana difaaco. bilowgii duulaanka, Ingiriisku waxay aaminsanaayeen in xulafadooda sida Maraykanka uu dagaalka ku soo biiri doono si culayska ugu khafiifiyo, balse taas ma dhicin. duqaymihii Jarmalka ee Londonna waxay sii socotay ilaa 10 bilood oo xiriir ah. dhinaca kale, maalin walba Hitler waxa uu khadka taleefanka ka soo wici jiray Winston Churchill, kaasoo ahaa ra'iisul wasaarihii xukumayay Ingiriiska, isagoo ku leh, haye diyaar muutiin in aad isdhiibtaan si duqaynta looga daayo. balse Winston Churchill ayaa markaas ugu jawaabayay hal kalimad oo kaliya, taasoo ahayd maya, maya, isma dhiibi doono. kadib 10kaas bilood ee magaalada London ay ku socotay duqaynta Jarmalka, waxaa dhammaaday dagaalkii, waxaana markaas soo baxay khasaarihii ka dhashay. waxaa la xaqiijiyey in ay ku dhinteen ilaa 50,000 oo qof oo ka mid ahaa dadkii ku noolaa magaalada London. kalabar magaaladana waxaa soo gaaray burbur xooggan. urka meydadkana luuq walbo ayaa laga dareemayay, laakiin ehelkeedu way diideen in ay isdhiibaan. waxaana sidaas oo kala diiday in ay isdhiibto magaalada Leningrad ee Sofiyeetka, taasoo ciidamadii Jarmalku ay muddo dheer go'doomiyeen. labada magaaladoodba waxay diideen in ay isdhiibaan oo ay qabsadaan ciidamadii Hitler. hadda sidaas si la mid ah, caalamka oo dhan waxay markhaati iyo goobjoog u yihiin adkaysiga iyo geesinimada shacabka walaal reer Gaza, kuwaasoo wax ku dhow 100 cisho ay u adkaysanayaan duqaymaha wuxuushnimada ah iyo duulaanka ciidamada gumaysiga Israa'iil. Gaza waxay qoraysaa taariikh cusub iyo dhacdo cusub.